casharka labaad ee kitaabka Xisnul Muslim ducooyinka marka laga soo tooso hurdada. Ducooyinkan wada aqri ama mid ka mid ah ku gaabso marka aad ka soo toosto ama aad ka soo kacdo hurdada. Laakiin inaad dhammaantood wada aqriso ayaa ku wanaagsan adiga, maxaa yeelay mid walba waxay ka caawinaysaa qayb gaar ah. Tusaale, kiniinka ama irbadaha way kala duwan yihiin, mid walba cudur gaar ah ayaa loogu talagalay. adigoo madax ku xanuunaya haddii aad cunto kiniinka caloosha waxba kaama tarayo. Ducooyinkana waa sidaas oo kale, mid walba dhan gaar ah ayay qaabilsan tahay. sidaa darteed wada aqri waa haddii ay suuragal kuu tahay. ducada koowaad: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. mahad waxaa iska leh allihiina nooleeyey intuuna dhinsiiyey amuuna dilay kadib, xaggiisuuna ahaaday soo bixitaanka maalinta qiyaamaha. dhimashadaasna lagama wado midii caadiga ahayd ee ajash loo dhiman jiray, ee waxaa lagu magacaabaa mawtu suqra ama geeridii yaray. adkaarta labaad: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي. ilaah xaq lagu caabudo ma jiro ilaahay mooye, xaal uu yahay keligii, cid wax la wadaagtana ma jirto. wuxuuna leeyahay boqornimo, waxaana u sugnaatay mahad, wax kastana wuu awoodaa. ilaahay baana ka hufan, yacni ka dhowrsan xumaan oo dhan, mahadna leh, ahna ilaaha xaq lagu caabudo. allaana weyn, xaylad iyo awoodna waxay u sugnaadeen allihii sareeyey ee weynaa. rabbiyow ii dambi dhaaf. ducada saddexaad: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. mahad ilaahay baa leh, allihii ii caafiyey jirkayga, iyana soo celiyey ruuxdayda, iyana ogolaaday xusidiisa, yacni allihii ii soo nabadkiciyey, iyana ogolaaday ama ii fududeeyey xusidiisa ama cibaadadiisa. haddaba dadka aan salaadaha dukan, gaar ahaan salaada subax, nasiib uma leh ducadan, waaba haddii ay ku ducaystaane. kadibna waxaad akhrinaysaa aayadahan soo socda: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. la soco casharka xiga insha Allah.